بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إله بقى محد له كل نفس ذائقة الموت. قف والمالنتيس ayay geerida taabanaysaa runtii walaalkeena saaxiibkeena oo ahlu khayrka ahaa Saqar Ibrahim Abdallah Allah u naxariisto Ilaahay sabar iimaan naga siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan labaanada iyo golaha wasiirada iyo eheladii iyo qaraabadii cashiiradii uu ka baxay sabr iimaan Allah ka siiyo intaan ogahay walaalkayga Saqar wuxuu ahaa qof ahlu khayr ah qof caalim ah runtii qof dalkan wuxuu soo bartay qof maanta aan ku qiyaasi karno shakhsiyaadka aan wada shaqeeyna midka uu khayrka badan inuu yahay oo afkiisa aan ku soo gaareenin oo runtii aqoonta islaamka si dhaba u haysta Ilaahay waxa ugu baryeynaa inuu dambigiisa dhaafo uguna abaal mariyo maalinta aakhiro dambi dhaaf iyo jannatul firdawsa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u geeyo antaas ka soo waxaan rabaa inaan la wadaago shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maalin walba waxa ku dhinta meeshan shacab fara badan oo maanta bay ka mid yihiin shacabkii asagoo la geeriyooday ayagana sabr iimaan Allah naga siiyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego inaan qof kaligiis wax qaban karin looga baahan yahay inay garab istaagaan dawladoodii inay garab istaagaan mas'uuliyiinta inay la shaqeeyaan aaminsanna haddaan wada shaqeeyno inaan cadawgan oo runtii wax u dhaafay aysan jirin uusan dhaafeen mas'uul uusan dhaafeen carruurta aysan dhaafeen hooyada dhallaanka maanta aysan dhaafeenin sidii la isaga difaaci lahaa waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in aanan qof kasto maanta ay dilaan ama isha qof kasto waqtigiisa soo dhamaatay ayaa dhinta oo qof kasto ayaga ay sababsadaan inaysan cabsi gelinaynin insha Allah ta'ala shacabka Soomaaliyeedna aan ka qaban doono runtii barnaamij badan ma rabo inaan galo waxaan rabaa inaan u taasiyo ama shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatada ka soo gaartay gaar ahaan saaxiibkayga oo maanta aan duugnay runtii isagana si gaar ah ayaan ugu tacseenayaa ehladooda iyo qaraabadooda. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.